دوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد كالغو دوغسدا وعد كالغو ديرسدا وعد كالغو دداليسي أخويان كاغا دورو تدوينو عكاغا تدوينو عكاغا iyadoo guud ahaanba Somaliland maanta uu ka bilaabmay ololaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ayaa magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar taageerayaasha xisbiga cadaaladda daryeelka UCID waxa ay ku soo bandhigeen cududooda taageero kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa isugu soo baxay shawaariicda waaweyn ee magaalada Caynaba waana bulshada magaalada Caynaba kala soo qayb galay maalinta koowaad ee ololaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee UCID oo hogaaminayo musharax Maxamuud Xayir Ducaale ayaa waxa ay ku soo galbiyeen gudaha magaalada Caynaba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ugu dambeyntiina waxa taageerayaashan oo u tiro badan ay isugu soo biyashubteen fagaaraha khayriyada ee magaalada Caynaba waxaana ugu horreyn balkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee gobolka Saraar Faysal Axmed Jaamac وقال وحقرت يقار كم تاغيراش حسب معارض كيوعد gobolka Saraar waxay ka mahad celinaya sida uu taagnaydeen ilaa lixdii saaka aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa taageerayaasha xisbiga UCID waxaan filayaa in uu taagnaydeen xisbigiina iyo taageeray macnaha xildhibaanadiina taageersantiin waxaan soo dhawaynayaa oo halkan ku soo dhawaynayaa marka hore gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Xuseen maadna waxaan u celinayaa dadweynaha Cabdillah qof kasta oo gobolka ka mid ah ama deegaanka waxa laga doonayaa inuu nabadgelyada ka ilaaliyo dhinaciisa haddaan nabadgelyo la helin israxaad iyo xisbi toonna ma jirayo xisbigu in badan buu halkan ku dulmanaa xisbiga waa kii Faysal yiri si wacan bay soo dhaweysaan codka saw idinkama helo waar waxaan ku leeyahay codka maanta helaysaa maanta gacaliye Faysal musharaxiintiina goobaha iyo kuwii dawladda hoose annagu taageeradii iyaga iyo adigaba aan ku siinaynay iyo xisbiga siinay waa ta halkaa ka muuqata weey ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Sool Maxamuud Xayir Ducaale iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u sheegeen golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxayna u mahadnaqeen taageerayaasha magaalada Caynaba ee maanta sameeyay oo tuska balaaran bulshaweynta gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynabo maanta waxaynu muujinay taageero cud iyo miisaan leh oo aynu u hayno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba waxaynu beeninay oraahdii oran jirtay kulmiye warigi lagagama guuleysan gobolka Saraar iyo Caynabo maanta way naga muujinay inaynu taageersanahay inaynu u soo baxnay inaynu maxalida qulub furan aynu ku soo dhaweynayno madaxweynaha mustaqbalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faysal taageertiin bacadka waxay daaran tahay inay maalintii aynu lahayn ama maalintii kuma shaqo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu aasteeyay inaynu leenahay dabaaldega 23 bisha May aan kula soo dhaweynayno nasiib yeeranay saan gobolna yeeranay midna nasiib yeeran inay heeraan Faysal Cali Xuseen soo dhaweyn gudoomiye waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmadaadii waxaanu kugu soo dhaweynaynaa dadkaagii hallin bay iga sareeyay maanta la insha Allah bulshadeedu waxay ku ballan qaaday inaan wanka qaato xildhibaan jeesta wanka noqdo soo sidaa ma aha musharaxa baarlamaanka ee xildhibaan jeesta kulamaana waa Maxamuud Xayir Ducaale taageerayaashayda waa u sheegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa halkan ka salaamaya bulshada ilaa iyo saaka bacadka taagnay ee naftoodii loo hurtayna aad baan u salaamaya anigu waxaan hallin bay iga sareeyay maanta la insha Allah bulshadeedu waxay ku ballan qaaday inaan wanka qaato xildhibaan jeesta wanka noqdo soo sidaa ma aha waa maalintii koowaad ee ololaha xisbiga UCID annaguna waxaanu nahay musharaxiintii ka tartamayay degmada Caynaba golaheeda deegaanka salaan kadib waxaan ku soo dhaweynayaa ceelkii Caynaba ee taariikhiga ahaa iyo gobolka Saraar
guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali xuseen ayaan kuu soo dhowaynayaa guddoomiye waad arkaysaa dadkan ilaa saaka ayay taagnaayeen way daalanaayeen waan uga mahad celinayaa waanan ka raalli gelinayaa sida ay ilaa saaka u taagnaayeen taageerayaasha sharafta leh waxaan leeyahay raalli ahaada waxaan soo dhowaynayaa guddoomiyaheennii xisbiga waxaan leeyahay soo dhoweyn wanaagsan guddoomiye waxaan leeyahay ku soo dhowow dadkaasi ilaa maalintii la sameeyey kulmiye xisbiyada la sameeyey waxay ahaa kulmiye maantana waad arkaysaa halka ay marayaan way ku soo dhoweynayaan waxaan ku leeyahay ku soo dhowow ceelkii Caynaba taariikhiga waa ka ceelkii Caynaba taariikhiga ahaa waad ku soo dhowaanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذا سبحانه وتعالى نبعد إلهي way badan tahay shiwiga hala bariyo walaalayaal waxa weeye maanta anagu waxa ahayd waxa la sameeyey qorshe la sameeyey campaign-ka ololaha 2 maalmood baa laga dhigay labada maalmood inaga waa horeyno maalin waa maanta baa weeye maalinta kana waa arbacada hadaa la yiraahdo marka waxaan qorsheynay inaan maanta gelinka hore laga hadlo meesha la ilaa burco gelinka dambana ay dadka idin maado ka faa'iideysataan 26 bisha oo arbaca waxa la qorsheeyay inay noqoto laascaanood Ergaabo Hargeysa iyo Boorame marka maadaama aan 26 ku qornahay xagga galbeedka waxaan garanay inaan ka soo jarno sool ka soo jarno Caynabo aan isku nimaadno inaan idin lamaaneyno meesha la yiraahdo burco سلبان علم سعيد سلبان كيكو تلفزيون كعالمي صهن عينبا